lagu joojiyey colaadii gobolka Karabakh waxaana uu ku sifeeyey heshiiska mid ka turjumaya guuldarrada Armenia. khudbad telefishinka laga sii daayey ayaa Ilhan Aliyev waxa uu ku dhawaaqay inuu dhammaaday khilaafkii Karabakh ee u dhaxeeyey Baku iyo Yerevan oo laguna soo dhameeyey heshiiska cusub ee la gaadhay. madaxweynaha Azerbaijan waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Armenia Nikolay Pashinyan uu u saxiixay heshiiska sababo la xidhiidha gacan sarreynta Azerbaijan ee dagaalka darteed. qodobo ka mid ah heshiiska Armenia iyo Azerbaijan waxaa goor sii horeysay oo salaasadii saaka ahayd ku dhawaaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. isagoo faahfaahin ka bixinayay qodobada dhaxalgalka ee heshiiska uga soo baxay Azerbaijan ayaa madaxweyne Aliyev waxa uu sheegay in saddexda magaalo ee ku hadhay gacanta Armenia ee kala ah Agdam, Stepanakert iyo Lege loo dejiyey jadwal xilliyeed loogu soo celinayo gacanta Azerbaijan. 15 bisha Noofembar waxaa la soo wareejin doonaa buuri magaalada xarunta ee Stepanakert, halka 20 bishana la soo wareejin doono gobolka Agdam. 1 bisha Diseembarna waxaa la soo wareejin doonaa marinka Lege ee la isaga gudbo gobolka iyo jamhuuriyadda Armenia. inta kala wareejintu socoto ee xabad joojintaasi la gaadhay ay sii jirtana waxaa labada ciidan ku kala dhex jiri doona in ku dhow 2,000 oo askari oo Ruusha oo goobo kala duwan kormeerkooda kala soconaya, kuwaasoo adeegsan doona 60 gawaadhida dagaalka. waxaa kaloo madaxweynaha Azerbaijan uu caddeeyey inay dowladaha Ruushka iyo Turkigu ka soo wada shaqeeyeen howlgalka nabad ilaalineed ee gobolka Karabakh. Isniintii ayay ahayd markii madaxweynaha Azerbaijan ka sanqariyey suurtagalnimada in Turkigu si toos ah u soo galaan colaadda gobolka haddii ay wadamo kale soo galaan dagaalka oo la saftaan Armenia. Aliyev waxa uu sheegay inay Turkigu ku wada jiraan heshiisyo iskaashi oo dhinacyada difaaca iyo amniga ku saabsan, ayna u furan tahay inuu ka hortago Turkigu khatarta ka dhanka ah amniga qaran ee Azerbaijan. Turkigu waxa ay noogu jiraan buu yidhi halka Ruushka ugu jiro Armenia, sidaa daraaddeed waxa uu noo fidin karaa kaalmada difaac ee aan uga baahno. dagaalkan haatan la joojiyeen ayaa dib uga dhex qarxay Armenia iyo Azerbaijan 27 bishii Sebtembar ee sanadka, iyadoo xudunta dagaalkuna ahayd dhulkii ay Armenia muddada 30 sannadood ka haysatay jamhuuriyadda Azerbaijan. xilligaa dheer oo ay Armenia diidanayd dhammaan go'aamadii golaha amniga ee dhigayay inay dhulka ka baxdo. sidoo kalena ay Armenia ka hortimay dhexdhexaadinihii la isku dayay in lagu dhex galo labada dhinac. weerarkii ballaarnaa ee Azerbaijan ku qaaday gobolka 27 bisha si ay u soo ceshato ayaa isagu waxa uu ahaa weerar yimi kadib markii ay Armenia damacday inay sii ballaarsato dhulkii ay ka haysatay Azerbaijan oo qiyaas ahaan dhammaa 20% masaaxadda dhuleed ee Azerbaijan. haatan Armenia waxa ay muddo bil iyo badh gudahooda oo dagaalkaasi socday ka bacdi ay aqbashay inay isdhiibto oo waxa ay ogolaatay inay ka baxdo gobolkii ay 30 sannadood miiska wadahadallada ku diidaysay ka bixitaankiisa. isdhiibitaanka ciidamadii Armenia ee Karabakh ka dagaalamayay iyo ogolaanshaheeda inay gobolka ka baxdaa waxa ay ku soo beegmeen isla maalintii 9 bisha Noofembar oo ku beegan maalinta qarannimo ee jamhuuriyadda Azerbaijan, iyadoo dabaaldegyadii loo sameynayay munaasabadda xuska maalinta qarannimona ay ku soo darsantay munaasabad kale oo ah dhulkoodii laga haystay oo ay badankiisina xoreeyeen wixii kalena looga baxayo.
allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankiiyo cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaab iyo jannaalow ciirdaroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnee caafimaad sareecana nagu caymi eebbow